wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo wafdigu uu hogaaminayay oo muddooyinkii ugu dambeeyay ugu sugnaa gudaha magaalada Ceelafweyn taabagalka arrimaha nabadeynta ee loo fadhiyo magaalada Ceelafweyn ayaa waxay maanta kormeer ku tageen deegaanka Ceeriyaan oo maalin saddexaad dagaal ku dhaxmaray laba beelood oo wada degaa ujeedooyinka kormeerka wasiirada ayaa daarnaa u kuurgelida xaaladda nabadeed ee deegaankaasi sidoo kale waxay kula dardaarmeen bulshooyintii ay kula kulmeen deegaankaasi inay nabadda iyo xasiloonida ilaaliyaan arrintuna aanay halkaas dhaafin inta la gudagelayo arrimaha sababay dagaalkan iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen marka ugu horeysa halkan maanta aynu joogno shaqaaqa ka dhacday haddii aad deegaanka tihiin waxaan idinka markhaati furaynaa inaad labadaba si wanaagsan ka yeesheen inaad deganaansha muujiseen inaad nabadgelyo muujiseen waan idinka markhaati furayna waxaynu doonaynaa qadarna waa dhacaa labadaa arrimood meel wanaagsan bay iska taagteen meel wanaagsan baa iska taagteen arrinkaanuu soconnaa waxa weeye su'aal quraynu isweydiinaynaa saaka maxal baynuu bahannay mise dagaal baynuu bahannay xal baynuu bahannay soomaa waxaan ku soo ururinayaa dhibaatadu markay dhacdo dhibaatada waa la xalliyaa dhibaatada gaasna laguma sii daro baatroolna laguma sii daro dhibaatadu waxay u baahan tahay halka ay maraysa in lagu xallilo taasaa nin walba dantiisu ay maxaanku idhaahda ku jirtaa colaadi wax alla waxay faa'iidaysan ma leh weliba colaadda sokeeye gaar ahaan dad dal iyo dhasheeda waxaa la yidhaha laa khaaliba walaa maqluub carabiga cid guulaysatay iyo cid guuldarraysatay midna ma jirto iyagaa guuldarraystay qarankii soomaaliyeed baa magaciisii iyo sharaftiisii guuldarraysatay waa laga wada damqanayaa damqashadaasaa dadkaasoo dhan halkaa keentay waxaa loo baahan yahay in inta nool aynu u talinno oo ay naga ekaato intaa oo colaaddu intaa naga ekaato oo dhimashada bilaa macnaha intaa naga ekaato intii ilaahay qadaray baxday inta dambe loo taliyo ee nool darkay waxa weeye talabada xukuumadda qaadaysa aan laga hordegin ma wixii hore mise tan dambe talaabo la qaadaya kuwa hore waa ka soo loo fadhiya inta talaabo la qaadaya loo dul qaadan maayo nin wax iska rida waxaas way dhammaadeen nin qori qaato nin dila waxaas way dhammaadeen kuwa horena waa la kala guri tan talaabo la qaadaya ragga iyo horena waa taawan ku dhiirigelinaynaa inay dawladdu qaado gacan bir ah ku qabato maanta waxa alla wixii Soomaaliland ay madax lahaayeen haday tahay maxaan ku dhac culumo haday tahay cuqaal haday salaadiin garaadayo boqor tahay halkaas la isugu tagay qofkii ka qodox qaata ee ummadda ka naxiya ama dadka maartay in taageeri waaya deysay ku soo noqonaysa gurmadka waxa loo sameeyay waa gobolka Sanaag baa loo sameeyay gurmadka Soomaaliland isugu timi madaxdii qaranka ay halka u fadhido taagan oo sugaysa halkan maanta waxaan idinku nimi inaanu idin sheegno inaanu ka xunnahay oo wixii dhacay aanu aad iyo aad uga xunnay samiri iimaana aanu dileenahay tii horena waa ognay tan dambena waa ognay waxaan se idinku bishaaraynaynaa inay meel wanaagsan noo marayso oo aad iyo aad u qurux badan oo aanu tallaabadeedii hayno si qurux badanna aanu ugu daba jirno haddii aan ugu sintaan sida tii horeba noogu sinteen inaanu degdeg jawaab aan nooga maqli doontaan dawladdu waxay la mid tahay waalidka ilmaha dhalay oo kale ayay la mid tahay waxa weeyaan qaranka oo dhan ayaa naxariisi ugu jirtaa naxdin bay ka wada qabtaa tudhaala ugu wada jira sidaa darteed ayay dawladdu waxay ku dadaalaysaa inay dadka wanaag wax kaga raadiso oo ay wanaag uga dhaadhiciso wanaagu waxa uu yahay iyo nabadgelyadu waxay tahay hase yeeshee qofka ay u qurqursami weydo ee ay mari weydo ee u arki waayo dawladdu inay mid awood u leh inay tallaabo ka qaado tahay wuxuu arki doonaa sida kuwa maanta xabsiyada ku jira oo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka Ceeriyaan oo uga warbixiyay wafdigan qaabka uu duulimaadkaasi u dhacay iyo waxyaalaha sababay waxayna yiraahdeen ka dambe wuxuu nala kulmay iyada oo masaajidka rag iyo qaarna masaajidka ku jiro oo tukanayo qaarna iskaba hurdo oo
iyo nin weesaysanaya la yahay balaayo iyo baastoonna aan la filanayn buu nala kulmay waa nala ku laayey waa nala ku gaaday ciddii cid noo xigtay ee degaankii degaan noo xigay baana laayey tallaabo ma qaadinaano wax tallaabo annagu ma qaadin waa qaadaynaana odhan mayno haddii dawladdu tallaabo ka qaado oo soo qabatona nabadgelya waa sidaa naga aragtaan saasay noo ahaanay nabadgelyo hadday soo qaban weydana waa iska sabraynaa sidii kii horeba waa iska sabraynaa laakiinse waxbaanu dilaynaa iyo waa duulaynaa iyo waa aarsanaynaa iyo midna annagu odhan mayno waa iska sabraynaa dhallinyaradana waxaan leeyahay sidii aynu go'aansannay weeye go'aankeennu sidii dadweynahan iyo beelahan jaaraankeenna wixii soo maree hawl ka gaadhay ciidamada ka gaadhay ama waayeellada ka gaadhay waa ogtihiin karaahiyo waataynu halkaa ku tashannay axmed nuur sar star TV ceelaf weyn